السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين بوادي السلام يا ملاد جوكتان با وانيقو اجان نوغو قلب وناكسن باند الله يحاي انت هبين وتاين هبين وناكسن قودهان عالمك يا مالك استبا ومدى جمهورية السومالي لان سورد وادا إذلهان تيمبا قلب وناكسن الحمد لله دولكيني هويو نبض يبراري يبرواقو يعافيمات بان كوچوغنا waxaan rabaa in aan dhowr qodob oo muhiim ah ka hadlo live-kan hadda soo galay wuxuu hordhac u yahay 12 caawa ayaan soo gali doonaa live-kayga caadiga ah anuu kaga hadli doono qodobo badan dad badan oo cadow ayaa isriijan oogo malaha busaarad baa ku dhacday waxaan rabaa in aan ka hadlo arrimo muhiim ah aniga busaaradaygu ma dhicin dhalinyaro baan ahay dadka kaabamka caydha ku jira waxaan u sheegayaa anoo waddankaygii hooyo jooga ayuu ilaahay hanti iyo dhul iyo beer intaba isiiyay alxamdulillah rabbil caalamiin sharaf ayaan ku jiraa mustaqbalka dhowna waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaan noqdo dadka ugu hantida badan ee ugu dhaqaalaha badan guud ahaan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland alxamdulillah imikana ma sha Allah baan ku jiraa fiidiyoyadii aan habeenadii dhaweed ka hadlayay ma ahayn inaan kaga hadlayo wax aniga ii khaas ah taan kaga hadlayay waxa ahayd ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland inaan ku boogaadiyo inay dhalinyartooda talentiga leh ay iskarab istaagaan oo ay dhiiri galiyaan sida ay qadaadweyntuba u dhiiri galinaysay uga faa'iideysanayso dhalinyarta Soomaaliland ee ay dhaqaalaha u siinayaan mar walba cidda Soomaaliland ay difaacayso ay u taageer gareystaan waxa weeye taasi waa dagaalada la rabo laynugula dagaalamayo imika iyo waqti dhowna kama hadla weligeeba waan ka hadli jiray inay dhaqaale ku bixinayaan sidii ay mabda'a jamhuuriyadda Soomaaliland meesha ay uga saari lahaayeen taa bedelkeeda waxaan ka hadlayay waxa weeye ummadda reer Soomaaliland xukuumadda iyo shacbiba inay fahanto dhalinyartooda talentiga leh si aanay Soomaaliya uga faa'iideysan oo aanay mataqaanaa dhaqaale uga faa'iideysan iyagu inay gartaan dhiiri galiyaan garab istaagaan ka taageeraan waxay u baahan yihiin waa taataan ka hadlayaa maaha wax jaran ooga u baahan haddii aan intaa ka baxo qodobka ka baxo alxamdulillah rabbil caalamiin anigu ma yihiin in la iibsan karo anigu ma yihiin mabdi'iisa iyo hadafkiisa bedeli kara anigu waxa aan leeyahay waxaan leeyahay mabda' baan leeyahay go'aan baan leeyahay hadaf baan leeyahay qadiyad baan leeyahay ka turjumaysa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland inamada yaryar ee marka horeba aan target ka lahayn een hadaf lahayn een mabda' lahayn ee hormoonku ku badan yahay weeyi inamada yaryar ee dhuuni raaca ah nin soori ka qaadayna waa nin seefi ka qaaday in badan bay ila soo xidhiidheen xitaa maalmahan dhaweyd ee aan ka hadlayay in dhalinyarta Soomaaliland la dhiiri geliyo oo la taageero dad badan iyo mas'uuliyiin badan baa ila soo xidhiidhay oo dumar iyo ragba u badan oo idhi waxaad u baahan tahay annaga ka caawinayna Soomaalinimada ka hadal iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyagoo oo iska dhigaya inay midnimo ka hadlayaan lagama yaabo anigu qadiyadayda iyo qarannimadayda iyo targetkayga inaan waxan dharaaro mataqaanaa ku noolaada aan siisto waan ku adagahay laakiin ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayay u taalaa inay ogaadaan dhalinyarta talentiga leh ee dalkooda iyo dadkooda iyo qadiyadooda difaacaysa inay garab istaagaan hiil iyo hooba ummadda reer Soomaaliland bay u taalaa waana la rabo in lagala dagaalamo mabda'a Soomaaliland haddii aan qodobka inta aan kaga baxo waxaan rabaa inaan ka hadlo baryahan waxa soo batay Soomaalinimo dhalinyar reer Soomaaliland kamid ah ayaaba lagu mashquuliyay inay Oromo cadow tahay haddaan qodob yar oo kooban ka hadlo barnaamijka sii share gareeya caawa 12 ayaan si dhaba anoo soo diyaariyay uga hadli doonaa haddaan ka hadlo Soomaalinimada horta magaca Soomaali waa sinjiyad Soomaalinimadana waxa ku mataqaanaa adeegsada dadkii nolosha ka dhacay ee midnimadii Soomaaliyeed dumiyay ee taariikhda madow galay ayaa waxa ay ku qariyaan shantii Soomaaliyeed ayay Soomaalinimada ku qariyaan waxa tusaale ku ah inay idhaahdaan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
maxaa ku dhahay fanaanka ummadda Soomaaliyeed taasi waxa weeyi waa mabda siyaasi ah oo ay aaminsan yihiin rejiimkii midnimada Soomaaliyeed dumay taariikhda Soomaaliyeed dilay shisheeyaha iyo cadawga ku soo hagay ummadda Soomaaliyeed ayaa adeegsada marka la leeyahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma wuxuu u yahay ummad Soomaaliyeed inta afka Soomaaliga ku hadasha mise wuxuu u yahay maamulka taagta daran ee xamar waxa kufsaday magacii Soomaaliyeed oo sharafta ka qaaday waxa weeyi waa dadka waa rejiimka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya markaad adigu Soomaalinimadii ku taageerto ee aad tiraahdo anigu Soomaali baa tahay waxaad ogaataa inaad magacii Soomaaliyeed kufsatay oo aad ku biirtay rejiimka raba inay shantii Soomaaliyeed magacooda qariyaan haddaba waxa isweydiin mudan walaalayaal madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo markay leeyihiin madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Djibouti ma madaxweyne ayuu u yahay Somaliland ma madaxweyne u yahay NFD ma madaxweyne u yahay dowlad deegaanka Soomaalida ma madaxweyne u yahay taasi waxa ay jawaabteedu tahay waa maya haddaba dadka magaca Soomaaliyeed kufsaday dadka ku taageeraya ayaan doonayaa in aan ka qanciyo ee xitaa Somaliland qaarkood ay ka soo jeedaan xalay waxaan daawanayay runtii live uu soo galay ninka la yiraahdo Engineer Amir ma jecli dadka noocaas inaan isku mashquuliyo ee Somaliland ka soo jeeda ninka Engineer Amir la yiraahdaa waxa uu ku tiraabayay oo uu lahaa anigu Soomaali baan ah Soomaali inaad tahay yaa ku weydiiyay ma cid baa muran iyo su'aal ka qabta Soomaali waa sinjiyad waxa live-ka u soo galay ninka la yiraahdo Cabdisalaam Jartelma inanka la yiraahdo muwaadinka qaran Jamhuuriyadda Soomaaliland Ilyas Egas Burco runtii siyaabo badan ula hadlay iyo muwaadinka dhabta ah ee Ciise Riyoole haddii si kale aan u dhigo afartuba waxay ahaayeen afar dhalinyaro oo isku hayba oo isku deegaana oo meel ka soo wada jeeda waxa ayaan daraa waxay garan waayeen afartuba war horta idinku yaa tihiin waxa ayaan daraa in qadaadweyntii ay isku mashquulisay iyagoo waxa ay ka doodayeen ay ahayd fikirkii qadaadweynta ee Soomaalinimo ee ay rabeen inay ku qariyaan maxaa ku dhaayay shanta Soomaaliyeed waxa ayaan daraa in labana ay ammaanayeen ninka la yiraahdo Engineer Amir iyo Cabdisalaam Jartelman labana ay caayeen Oromo ku sheegayeen Ilyas Egas Burco iyo ninka la yiraahdo Ciise Riyoole oo rabay inay u caqli celiyaan ninka la yiraahdo Engineer Amir haddaba walaalayaal waxaan idin sheegayaa siyaasadda Soomaalinimo oo dhalinyartaana ku boogaadinaya ma aha mabda siyaasadeed ma aha mataqaanaa wax dan Soomaaliyeed loogu raadinayo waxa weeye waa fikir ay rejiim koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda ay rabaan inay ku qariyaan shantii Soomaaliyeed iyo qaranimada jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland waan ka xumahay afar dhalinyaro oo isku hayba oo isku deegaana in ay qadaadweyntii u goolayso oo iyagoo waliba ilmaadeera oo beel kaliya ka soo wada jeeda labana ay caayaan labana ay amaanaan oo ay garan waayeen dadka kala qaybinaya ee qaarna taageeraya qaarna caaya inay cadowgooda yihiin garan waayay tolnimadooda garan waayay ehelnimadooda garan waayay mataqaanaa waa subxaanallah waa mid ayaan dara ah qof Somaliland dara maxaabad kala doodaysa qof Somaliland dara oo ka soo jeeda taa macnaheedu waxa weeyi Somaliland iska daayay beelihii Somaliland baa ku beeshii habar jeclaa ku kala qaybsan Somaliland nimadii marka waxaad xoojisay fikirkii qadaadweynta haddaba haddii walaal aan u soo noqdo aragtida Soomaalinimo dadkan ku hiraaba habeen iyo maalin Soomaali sidan horeba u sheegay dhabka ma aha waa laba beelood oo midnimadii Soomaaliyeed dilay oo taariikhdii Soomaaliyeed dilay oo magacii Soomaaliyeed kufsaday oo sharaftii Soomaaliyeed dilay oo wax alla waxay ku soo kordhinayaan aan jirin Soomaalinimo haddaba walaal haddii aan imika si mataqaanaa aqliyana aan u dul istaago waxa ay ka hadlayeen inamada yaryar anigu Soomaali baan ahay marka Oromo noqoto Soomaali baan noqonayaa
okay idris dabshid aad iyo aad baan ku salaamayaa runtii waa muwaadin qaran idris dabshid Ilyas Burco ciise riyoole maxaan ku dhaayay xasan dayax ninka la ilaa maxaan ku dhaayay shaakir ciise dhalinyaradaasi waa dhalinyaradaasi waa vision iyo aragti leh war Somaliland waxa kaliya ee difaaca waxa weeye waa afarta dhalinyara reer Somaliland ma afarta dhalinyara ayaa taageeri weydeen oo dhiirin gelin weydeen oo garab istaagi kari weydeen horta taa Somaliland baan ku canaananayaa khaasatan waxa ay idin qabtaan wasaaradda warfaafinta Somaliland ma qabato haddaan qodobka aan ka hadlo qodobka ka baxo walaalayaal Soomaalinimada sidaan horeba u sheegay waxa ay ku doodayeen Somaliland anigu Soomaali baan ahay markay Oromo noqotana Soomaali baan noqonaya war horta waxa difaacaysa inaad fahantaan loo baahan yahay ma dhul iyo deegaan baad difaacaysaa mise sinjiyad baad difaacaysaa Oromadu sinjiyad kumay soo duulin Soomaalinimo kumay soo duulin Oromo dhul aad leedahayna kumay soo duulin horta kala fahan haddii ay dhabka tahay Soomaalinimada horta fahan sinjiyadu waa dhalasho cidna sinjiyadiisa lama bedeli karo isir weeyi waa dhalasho weeyi haddaba walaal dadkan iminka caqliyan iska dhiga inay Soomaalinimo difaacayaan ka hadlaya Oromo ay nagu soo duuli doonta oo Somaliland qabsan doonta miyaanay ahayn in la isweydiiyo war bal horta Oromo hal la gaaro waqtiga ay soo duuleysay ciidanka Ethiopia ee beled weyne jooga ee Kismaayo jooga ee Oromo leh ee Tigray leh ee Xabashi leh ee siday doonaan shacabka koonfurta Soomaaliya waxa suuqa lahaa askarigii sarkaalka ahaa intuu nin Soomaaliya oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya xaaskiisii u tagay weydiiyay ku yiri warniyo xaaskaaga way qurux badan tahay naagaan kale Soomaalida waxaan ka baqayaa inay cudur qabaan hadde xaaskaaga in adeer ma la seexan karaa laba nin bay ahaayeen midna wuxuu ahaa ciidanka Soomaaliya ka tirsanaa midna sarkaal Ethiopian ahaa ninka sarkaalka Ethiopianka ah ayaana ku yiri askariga Soomaaliga ah markaasaa intuu ninkii askariga Soomaaliga ah xaaskiisii u mid buu ku yiri xabiibti nin ma taqaanaa sarkaal Ethiopian oo wada shaqeyno ayaa wuxuu yiri naagaha Soomaaliya waxaan ka baqayaa inaan cudur ka qaado xaaskaaga caafimaad qabtay ma la seexan kartaa bal ka waran inantii Soomaaliyeed inta ninkeedii kabla dhacday bay tiri halka warqadeeda ugu sii inta aad ka hadlayso Oromo soo duulayso oo Somaliland qabsanaysa maxay waxaasi kuugu muuqan waayeen ciidankii Ethiopia ayaa dalkaagii iyo goboladaadii awood ku haysta waxa ka xun inta leedahay Oromo soo duulay war horta adigu xor ma tahay adigu xor ma tahay maxay kuugu muuqan weyday ciidamada Kenya ee buulaha way iyo gado habeen iyo maalin ku xasuuqaya shacabkaaga ku xasuuqaya maxay kuugu muuqan weyday geeli iyo xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen duqeynaya shirkadii Hormuud dhulkay lahayd iyo ma taqaana xafiisyadeedii dekan ka dhigay maxay kuugu muuqan waayeen intaad leedahay Oromo Somaliland ku soo duulaysa haday Soomaalinimadu ka dhab tahay maxay kuugu muuqan weyday habeen iyo maalin shacabka habliina Soomaaliyeed ee saraakiisha iyo ciidamada AMISOM intay siday doonaan wax nusqaala daratiya casho wax ka yar inta ay malkada kaga bedeshaan markay caruuraha dhalaana waxa la geeyaa xerada xalane ayaa caruurta la geeyaa caruurta xerada xalane la geeyana waxa loo dhoofiyaa wadamada Yurub iyo ma taqaana waxana laga la baxaa kaliyaha maraakiib baa lagu guraa hooyooyin Soomaaliyeed baa dhalay waxana ka dhalay ciidamada AMISOM baa ka dhalay maxay kuugu muuqan weyday ciidamada ajaanibka ee dhaqankaagii iyo diintaadii iyo xooggaagii siday doonaan ugu tagrifalaya inta aad leedahay Oromo ayaa Somaliland amba Soomaali ku soo duulaysa maxay kuugu muuqan weyday midnimada aad ka hadlaysaa inaad garowan caqligaasi waa caqliga qadaadweynta la igu qaldi maayo aniga Soomaali afka ah
oo laba reer ay rabaan in ay shantii Soomaaliyeed ay ku qariyaan iyaga oo iyagii aan xor ahayn iyagii intaasoo amisom oo 12,000 oo askari ay gumaysi ku haystaan iyaga oo buula xaawo iyo mataqaana maxaan ku dhahay balad xaawo gado oo farmaajo ka soo jeedo maalin walba askari Kenyaati ay shacabka ku xasuuqayaan walaalayaal caawa ayaan soo gali doonaa 12 habeenimo anigu waxa aan Facebook live go soo galaa maaha inaan dhaqaale ka helo arsaaqdayduna Facebook live kuma xidhna nin dhalinyaro baan ahay ma sha Allah tabaarakallah xaas baan leeyahay hanti baan leeyahay dhul baan leeyahay alxamdulillah rabbil alaamiin waan dehanahay gaadhaan wata nolosha wanaagsan baan ku noolahay kaliya waxa weeyi aan ka hadlayay waxa weeyi dhalinyarteena la rabo in la majara habaabiyo ee dhaqaalaha lagula dagaalamayo inay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay gartaan inay garab istaagaan ay taageeraan inay ku taageeraan sheerta commentiga like-ta maxaa ku raay hiiliyahooba oo ay u ogaadaan difaaca ay qarankooda ugu jiraan walaalayaal waxaan ka tacsiyadeynayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ninka la ilaahday Engineer Amir on aragti iyo hadaf iyo mataqaana target aan lahayn oo hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland ceebeeyay oo idhi oromada ayaa kusata oo siday doonto u gasha hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa hablaha ugu sharafta iyo karaamada bangayga Soomaaliya ay oromo haweysanaysan ma oromaad sheegaysaa qadaad weyn ayaan geyin hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland qadaad weyn baan geyin hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagu guursadaa dhaqan iyo diin baa lagu guursadaa yaradiye gabaati baa laga bixiyaa niman haybtiisa la garanayna hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland ma geeyaan marka ninka la ilaahay Engineer Amir waxaan u sheegayaa haddii aad adigu garan weyday saddexdan inay ilnaadeerkaaya ee qadaad weyn bahdilayso ee idinka oo habar jecla ah inta Facebook live la isku soo ururiyay maxaa ku dhaca qadaad weyntii idinku urishaysa damiirkaagu hadduu garan waaye hablaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel baad kaga dhacday apologies ka bixi qalad weyn buu galay gaf weyn buu galay waxa la yiri hadal wuxuu amaan yahay inta aanad oran afka hadduu ka soo baxo adigu ma arrimisid oromo kufsata ma jirto hablaha Soomaaliland oromo hablaha Soomaaliland haweysata ma jirto oromo waa dad muslim ah waa dad aanu jaarnahay waxa weeyi waxa naga dhaxeeya jaarnima naga dhaxaysa ganacsi baa naga dhaxeeya adduunka oo dhanna cid waliba way joogtaa 10,000 oo oromo oo Soomaaliland joogtaana ma jirto waxay u badan yihiin dad iska masaakiina oo qaxoontiya oo baabuurta dhaqa oo beeraha ka shaqeeya oo magan inoo abay u badan yihiin ninka Engineer Amir la ilaahdo iyo Cabdisalaan Jaltalmaan ee oromada wax ka sheegaya wadama ajaaniba ay qaxoonti ku yihiin oo ay kam caayda ugu jiraan wadan walba caalamka oo dhan shacabkiisu wadan walba martibu ku yahay haddii la leeyahay martida wadankaaga joogta ka saar aqliga ma galayso wadan walba marti way joogtaa adduunka oo dhanina waa isku baahan yahay sida Engineer Amir iyo Cabdisalaan Jaltalmaan iyo mataqaana kuwa kaamka caayda ku jira ay marti ugu yihiin wadamada ajaanibka ah ayay oromaduna Soomaaliland marti ugu tahay si xaqna way ku leedahay waa dad jaar aynu nahay midda kale aqliga ku siinaya inaad jaarkaagii lagugu diro oo Kenya oo maalin iyo habeen balad xaawo iyo ceel barde iyo gado shacabkoodii ku xasuuqaysa ugu muuqa weyday ee adiga jaarkaaga cadow lagaaga dhigayaa muxuu yahay innaga jaarkeenu waa Ethiopia jaarkaagana ilaahay baa ku dooray adigu ma dooran kartid jaarkeenu waa Ethiopia dhibaatada Soomaaliya inaga socota Ethiopia inaga ma socoto ganacsi baa inaga dhaxeeya maxaan ku dhaayay scholarship ardaydeeni meel walba ay Soomaaliya ka soo xidheen ay ka xaasideen wax barashay u tagaan kumaankum reer Somaliland ayaa scholarship u joogay Ethiopia oo Addis Ababa jaamacadaheeda ku jira oo si sharaf iyo karaamo leh baasaboorka Somaliland ku dhigta inta soo ganacsato oo reer Somaliland baa Ethiopia ku xidhan
magaalada wajaale waa deked waxay deked u tahay Itoobiya deked u tahay nabad iyo xidhiidh iyo walaalnimo iyo dhaqan dhaqaale baa inaga dhaxeeya caqligaaga ku siiyay adiga in qadaad weyn inay Keeniyana ka hadli weydo oo jaarkooda ah adigana jaarkaaga lagugu diro ma waxaad ku garan weyday war ma waxaad isweydiin wey su'aalahaas aad isweydiin weyd mid kale arinta muhiimka ee la rabo inaynu isweydiino kuwa maanta jiritaankaaga nacab ee dagaalka kugu soo qaadaya ee raba inay adduunka ka tirtiraan ee Soomaaliland la soo marsiinayn ee mataqaanaa hubka ku urursanaya ee kugu shahiidaya ee dhiigaaga daadinaya ee noloshaada ka xun ee arsaaqdaada la dagaalamaya Soomaalinimada idinka dhaxaysa maxay tahay islaamnimada idinka dhaxaysa habeen iyo maalin shacab iyo xukuumad saqiir iyo kabiir waxay u taagan yihiin inay raadka Soomaaliland baabiyaan jiritaankaaga la dagaalamayaan noloshaada arsaaqdaada heer ay gaadhay xashki maxay u muuqan weyday Soomaalinimadu Kismaayo farmaajo ma xukumo garow ma xukumo midnimada iyo Soomaalinimada ay ku mashquulsan yihiin waxa la yiri tiisaba daryeela ayaa tukala ku dara marka adigu aad ka bilowdo gurigaaga ayaa dadka jaarka aagana ugu tagi kartaa wixii wanaag ee aad adigu samaysatay waxa weey walaalayaal garow iyo xamar mid maaha laba calan bay kala sitaan xafiisyoga ma furna farmaajo ma xukumo dhurwaa khayr martibu ku yahay Kismaayo laba sarkaal buu u soo diray diyaarad u soo saaray ninka la yiraahdo farmaajo u soo magacaabay Axmed Madoobe 24 saacadood gudahood buu kaga celiyay oo uu yiri lagalama tashan galmudug sidaa ka daalig Hirshabeelle war adigiiba hadii aanad midaysnayn oo dawladdaadu aanay ahayn mid ka shaqeyso koonfurta Soomaaliya sidee baad rabtaa afarta Soomaaliyeed kale inaad ugu qanciso sidee baad rabtaa inaad ugu doodo dawlad deegaanka Soomaalida sidee baad rabtaa inaad ugu doodo Soomaaliland oo tira Oromo soo weeraraysa adigiiba kala qaybsan oo qoxoontiya oo mataqaanaa nolol haysan oo shacabkaaga dhibaataysan yihiin oo mataqaanaa Kenya qoxoonti ku ah oo Itoobiya qoxoonti ku ah oo Baasatiin Yemen qoxoonti ku ah oo Yurub iyo Mareykan qoxoonti ku ah adiga oo la haysta oon awood lahayn oon ciidan lahayn oo ciidankaagii amisom noqday oon dhulkii Soomaali koonfurta Soomaaliya gacan ku ugu jirin oo awooddaadu aanay Garowe iyo Kismaayo iyo mataqaanaa balad xaawo gaarsiisnayn oo xaafad Soomaaliya kamida xukuma sidee baad ugu doodi kartaa Soomaaliland iyo Djibouti sidee baad ugu doodi kartaa aqliga saliimka iyo mataqaanaa cidii wax fahmaysa way kala garanaysaa walaalayaal maanta waxa doodi kara waa umada reer Soomaaliland iyo Djibouti Soomaali waxa xor ka ah oo deegaanadooda xor ah oo ku dagaalami kara oo Soomaali difaaci kara oo gobonimo ku dhiman kara oo dimuqraadiya oo xora oo ciidankoodii oo Soomaali deegaanadoodii ay ku dhimanayaan waxa weey waa Djibouti iyo Somaliland weey run ma doonaysa maxay Djibouti intaas oo ciidan iyo intaas oo diyaaradood bay leedahay dawlad deegaanka Soomaalida uga hadlilaada maxay uga hadlilaada sababta aad adigu uga hadashay waa maxay adigoo balad xaawo iyo gado Kismaayo waayo adigoo Kismaayo iyo balad xaawo iyo gado ciidamadii Kenya iyo Itoobiya kugu gumaysanayaan oo taadi leel darab yaa tayarko hisiinaya yaa tay soo salay tayar gurigaaga abtiga qaad oo inteeda guriga gee waxa ku sheegaya caawa ninka Soomaalinimo ku faanaya nin reer koonfura oo Soomaaliya ka soo jeeda af Soomaalinimo inuu ku hadlo lagama yaabo af Soomaalinimo inuu ku hadlo waa qalad weey af Soomaalinimana kuma hadli karo Soomaali midnimadeedana kama hadli karo hadii uu ka hadlayo waa inuu dhibaatada hoostiisa taala uu ka hadlaa
كينيا بلد حاو وينو كهلا ما قرأت تاينو كهلو وينو حمر كهلا قرح كدعية وينو لبي الله تكون أمي صوم كهلا والمحال حرنما كهذا حرنما محاد كهذا لبي الله تكون أمي صوم أفريقيا إثيوبيا كينيا يوغندا بوروندي أي ديجانا هذه كرة حيسنا إياها بلاها أجيه وحرنمada aad leedahay waan u dagaalamayaa maxay tahay sideebaad Ethiopia uga hadli kartaa iyo Soomaaliland uga hadli kartaa nacsiyo aan damiirka iyo Soomaalinimadii meel Ilaahay baa kugu dhaarshay sideeba uga hadli karaa ninka 22,000 oo Afrikaana oo waliba Afrika ugu liita Soomaalinimo ku faanaya Kenya oo Masaya yara sugo walaalay